فرحة ومكلا حالي إلياي إرقالياي حوقي مدينة kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiin halka aad nagala socotaan waa Horsocod Media oo aad ka daawataan barnaamijyo iskugu jira arrimaha fanka, siyaasadda, dhaqanka iyo waliba arrimaha bulshada. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo fura gambaleelka haddaad saaxiib nala tahayna waad ku mahadsan tahay Ilaahay ha ku xifdiyo Ilaahay umuuraha leedahay ha sahleen dhammaantiinba muuqaalkay nool ay gareeya cid walba muuqaalka la gareeyo subxaan Allah subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa inuu Ilaahay awlaadu u barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xifdiyo umuuraha leedahayna Ilaahay uu sahlo waxaan eegi doonaa fanaanka Qamar Suudaani oo aroos heer sare ah ku dhigan doona magaalada Hargeysa iyo qabanqaabada arooskaasi oo laga dareemayo gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan arooskaasi Qamar Suudaani oo arooska qarniga asiga iyo gacalisidiisa Nasiya Sooraar oo dhalay abwaan caan ah waa abwaan Sooraar gabadhiisa oo dhawaan dib ugu laabatay magaalada Hargeysa kadib markay ka tagtay magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska. haddaba arintaasi ayaan idin soo gudbin doonaa dhammaantiinba aadaha hambal iyo fanaanka Qamar Suudaani fanaanka da'da yar ee Soomaalinimadana sida weyn u jecel. Qamar Suudaani ayaa lagu wadaa 14 bishan maalinta jaceelka in aroos lagu magac daray arooska qarniga oo si weyn loo qaban qaabinayo inuu ku qabsado magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland gaar ahaan hotelka Mansour oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee ku yaal magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. waxaana wararka intaas ay sii raacinayaan in arooska qabanqaabadiisa laga dareemayo gudaha magaalada Hargeysa iyo waliba deegaano kale oo dhaca Somaliland. waxaana ila wareedyada inoo xaqiijiyeen in arooska uu dhici doono 14 bishan waa arooska qarniga ee Nasiima iyo sidoo kale fanaanka da'da yar ee Qamar Suudaani ayadoona arooska ay ka soo qayb gali doonaan fanaaniin kala duwan oo reer Somaliland iyo waliba deegaano kale deegaanada kale Soomaalida fanaaniin ka tagtay oo daneynaysa inay ka qayb galaan arooska qarniga ee uu dhiganayo fanaanka Qamar Suudaani iyo gacalisidiisa. waxaana arooskan ka dhici doona hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa la sheegay in kaalimaha heeseedo cusub ay ku soo bandhigi doonaan fanaaniin kala duwan kuwaas oo ugu talagalay heesahaasi in ay u qaadaan fanaanka Qamar Suudaani oo ah fanaan aad u da'yar isla markaana dhowr mar lagu dhibaateeyay gudaha magaalada Hargeysa kadib markuu sheegay inuu aadi doono magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo waliba deegaanada kale ee Soomaaliyana ay tahay mid. waxaana fanaanka Qamar Suudaani uu ku dhigan doonaa gudaha magaalada Hargeysa 14 bishan arooskaasi waxaana halkaasi sida la sheegay heesa ka qaadi doona fanaaniin kala duwan oo ay ka mid tahay fanaanada Asma Love iyo sidoo kale Qadra Salima oo la sheegay in hees cajiib ah ay diyaarisay taas oo ugu talagashay inay ku soo bandhigto xafladda arooska ee uu dhiganayo fanaanka Qamar Suudaani. fanaaniin kala duwan ayaa halkaasi ku soo bandhigi doona heesa cusub taas oo ay ugu dabaaldegayaan weynaynta arooska qarniga ee fanaanada waa fanaanka Qamar Suudaani iyo gacalisidiisa Nasiima Sooraar oo uu dhalay abwaanka caanka ahna majaajiliista sida weyn ay u yaqaaniin dadka Soomaalida. waxaana sida Qadra Salima laga soo xigtay sidoo kale Asma Love ay xaqiijiyeen inay diyaariyeen heeso kala duwan oo cusub kuwaasi oo ay doonayaan inay ku soo bandhigaan arooska qarniga ee uu dhiganayo fanaanka Qamar Suudaani. Qamar Suudaani ayaa dhawaan guursaday gabadhan uu dhalay abwaan Sooraar oo deegaan ahaan degan dalka Ingiriiska ayadoona meherkooda uu ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa. waxaana 14 bishan lagu wadaa inay dhigtaan arooska qarniga oo ay ku dhiganayaan hotelka Mansour. waxaana fanaanka Qamar Suudaani ka hor arooskiisa uu la kulmay caqabado badan kuwaas oo uu kala kulmayay ciidamada booliska ee Somaliland. mar ayaa magaalada Hargeysa lagu jirdilay fanaanka Qamar Suudaani kadib markii uu sheegay inuu aadi doono deegaano kala duwan oo Soomaalida ay degto ay ka mid tahay magaalada caasimadda Soomaaliya oo ah Muqdisho halkaasina uu ku qaban doono bandhig faneed taas oo ay ka xanaaqeen ciidamada ammaanka ee Somaliland. waxaana kadib loo geystay jirdil ayadoona xilligaas wixii ka dambeeyay jirdilkiisa waraysi uu bixiyay oo ku sheegay in waxba aysan ka bedelaynin jirdilka loo geystay qorshaha uu ku doonayay in deegaano kala duwan oo Soomaalida uu aado ayna ka mid tahay magaalada Muqdisho. waxaana dabadeed jirtay gabar tiri waxa ay ureeyay fanaanka Qamar Suudaani taas oo cod ay sheegtay ku soo bandhigtay baraha bulshada inuu yahay fanaanka Qamar Suudaani. waxaana arintaasi laga been abuuranayay fanaankan da'da yar ee Qamar Suudaani oo la doonayay in sharafkiisa dhulka lagu
geliyo laakiin arrintaasi ayaa markii dambe dadka Soomaaliyeed waxay ogaadeen inay tahay arrin been abuur ah oo ay soo abaabuleen hay'adaha amniga si kiis lagu soo oga fanaanka Qamar Suudaani waxaana hadda fanaanka Qamar Suudaani uu la aqalgalayaa afadiisa Nasiima Sooraar iyo ayadoona arooska uu ka dhici doono magaalada Hargeysa kaas oo ah arooska qarniga waxaana dhammaantiin aan idin leeyahay aan wada dhahno fanaankan da'da yar ee Qamar Suudaani hambaliyo arooska qarniga oo 14 bishan uu ku dhigan doono magaalada Hargeysa waxaan idin soo gudbin doonaa wareysi aan la yeelanay fanaanka Qamar Suudaani oo ka hadli doona dareenkiisa ku aadan arooska qarniga ee 14 bishan uu ku dhigan doono magaalada Hargeysa iyo fanaanka wuxuu arooska ugu soo maalinta jaceelka adduunka oo 14 bisha taas oo loo dabaaldegayo weynaynta maalinta jaceelka adduunka oo maalin ku asteysan waa 14 bisha oo ku asteysan maalinta jaceelka adduunka taas oo dadka adduunka ay si weyn u weyneeyaan waxaana arintaasi wuxuu ka yiraahdo fanaanka Qamar Suudaani ayaan idin soo gudbin doonaa hadduu Allah awood leh uu saamaxo sidoo kale eedeymo kala duwan oo xilli kala duwan hay'adaha amniga iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay fanaanka ciidamada booliska Somaliland iyo wixii iska bedelay mowqifkiisa ku aadanaa inuu aado magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo dhaca Soomaaliya si halkaasi uu ugu qabto showye kala duwan fanaanka Qamar Suudaani ayaa xilligan wuxuu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee Soomaalida kuwaas waxaana uu ka mid yahay fanaaniinta sida weyn loo jecel yahay dhageysiga heesooda wuxuuna soo bandhigaa heeso kala duwan oo inta badan ka hadlaya jaceelka iyo waliba nolosha jaceelka waxay tahay taas oo keentay in fanaanka Qamar Suudaani uu kasbado taageerayaal badan inkastoo uu la kulmayay caqabado kala duwan oo kaga imaanayay hay'adaha amniga ee Somaliland waxaase hadda moodaa in caqabadihii uu ka gudbay ayadoona dad badan oo Soomaaliyeed ay karab istaageen fanaanka Qamar Suudaani markii ay soo wajahday caqabada isla markaana culayska ay soo saareen hay'adaha amniga ee Somaliland hadda dhammaanteen baan wada leenahay fanaanka Qamar Suudaani hambaliyo arooskaaga qarniga 14 bishan aad ku dhiganaysid adiga gaclisadaada magaalada Hargeysa gaar ahaan hotelka Mansour waxaana hadda magaalada Hargeysa ku sii qulqulaya fanaaniin kala duwan oo ka tagtay dalka waa fanaaniin ka imaaday dibadaha ama qurbaha kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan arooska fanaanka Qamar Suudaani uu ku dhiganayo magaalada Hargeysa ayadoona fanaaniinta xidigaha geeska kuwa badan oo kamid ah iyo kuwa ku sugan magaalada Hargeysa ba dhamaantooda sida la sheegay intooda badan aan iraahday inay ka qayb gali doonaan arooska qarniga ee fanaanka Qamar Suudaani waxaana halkan aan idinku soo gudbin doonaa xafladaasi arooska iyo waliba heesaha ay ku soo bandhigayaan fanaaniinta qaarkood sida fanaanada Qadra Saliima Asma Loof iyo waliba fanaaniin kale kuwaasoo hadda sheegay inay diyaariyeen heeso cusub oo ay doonayaan inay ku soo bandhigaan xafladda arooska qarniga ee uu dhiganayo fanaanka Qamar Suudaani oo kamid ah fanaaniinta da'da yar ee Soomaaliyeed haddaba halkan kala soco kaalimahaasi heeseed ee fanaaniintan tirada badan ee ku soo bandhigi doonaan xafladda arooska ee fanaanka Qamar Suudaani